ninka ugu horeeyay 45tooda shalay la soo baxay bir laguma dilin lama bireen waa la daldalay kursiga loo dhigay qoorta xarig loo suray waa la daldalay maxaad codsanayaa la shalay ninkaas wuxuu mudan yahay taala in Soomaaliya looga dhiso lana maamuuso wuxuu yiri aniga waxaan codsanayaa anigu waa dhintay 44 dambe in la badbaadiyo waxaan leeyahay Sacuudi Arabiya waxa lagu gumaadayaa dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo duruufo kala duwan qaba oo dalka uga tagay inay wax ku soo kordhiyaan naftoodana maareeyaan oo tahriibay oo bad maray cid Soomaalinimo ku jirto cid dhiig leh dawladda Soomaaliya hay'adaha garsoorka si gaar ah waxaan ula dardaarmayaa halkan waxaan soo istaaga baaqan diraayo waxaan si gaar ah ula dardaarmayaa wasiirka arrimaha dibadda faqi wasaaradda cadaaladda ninka u xil saaran ama qunsulka u xil saaran oo jooga dalka Sacuudi Arabiya waxaan leeyahay Sacuudi Arabiya waxa lagu gumaadayaa dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo duruufo kala duwan qaba oo dalka uga tagay inay wax ku soo kordhiyaan naftoodana maareeyaan oo tahriibay oo bad maray oo Ilaahay ku badbaadiyay oo dalka Yaman oo dhibaato ka jirta dhex maray oo Ilaahay ku badbaadiyay oo dalka Sacuudi Arabiya tagay waxa xirta Sacuudiyaan meel baadiyaha ku xirteen meel baadiyaha oo u dhow xuduudka ay leeyihiin Yaman askara xukuntay maxkamad lama geyn dad duur jooga oo beera falata oo qolada la yiraahdo waardiyeysa dhirta iyo daaqa iyo duur joogta askar ah qabatay meelay ku xireen waa xukumeen dil toogashahay ku xukumeen waa 45 qofood oo u malaynayo liiska maanta markii la akhrinayo arkay laba gabdhood inay ku jiraan oo Soomaaliya oo dhalinyaro oo rajo iyo damac adduunyada kala oo islahay naftiina aad soo maareydaan oo kulligood 40 sano ka yar war cid Soomaalinimo ku jirto muuqaalka meel dheer ha gaarsiiyo Soomaalinimo cid ay ku jirto si ay u badbaadaan dadka Sacuudiyaanku meesha ku xakunteen ee midka ula soo baxayaan u tooganayaan muuqaalka meel dheer ha gaarsiiyo 45 qofood askara afduubatay xeray ku shubeen ayaga xukumay ayaga lawyer u ahay ayaga gudoomiye maxkamadeed u ahay ayaga garsoor u ahay ayaga seefta sito tooganaya ninka ugu horeeyay 45tooda shalay la soo baxay bir laguma dilin lama bireen waa la daldalay kursiga loo dhigay qoorta xarig loo suray waa la daldalay maxaad codsanayaa la shalay ninkaas wuxuu mudan yahay taala in Soomaaliya looga dhiso lana maamuuso wuxuu yiri aniga waxaan codsanayaa anigu waa dhintay 44 dambe in la badbaadiyo la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anigu waa tagay xarigaasana isugaahe kursiga in la iga tuuro kaliya meesha ka laalaadsado naftu ideydana ay haray 44 kale hal la badbaadiyo madaxweynaha dalka ra'iisul wasaaraha gudoomiyaasha labada aqal hay'adaha ay qusayso waxaan leenahay 44 qofood oo dhalinyaro Soomaaliyeed ee Sacuudi lagu gumaadaya waxa laga yaabaa inuu san ogeyn wasaaradda cadaaladda Sacuudiga inaysan ogeyn golaha maxkamadaha Sacuudiga inaysan ogeyn dadkaas dada haysta dadka Liibiya lagu haysta waxay uga bedelan yihiin malahan Sacuudi Arabiya dawladda ka jirta safiiraan leenahay u fadhiya dadka waxaan rabnaa dawladdu si degdeg ah inay jawaab uga bixiso muuqaalka meel dheer gaarsiiya si 44 qofood ilma adeerayaalo walaalayaalo Soomaaliyay inta jiir damqada lahay muuqaalkaas meel dheer ha la gaarsiiyo aad u mahadsan